2022 mar dhawid ba waxay soo wacnaan saaxiibanahay Khalid Yusuf Tahir leeyahay halkan Istanbul aan wada joognay 2022 habeen aanu doodaynay oo aanu ka sheekaysanay arrimaha Soomaaliland ayaan ku dhaniyo ninkan musabix siyaasi ahaan waa nin faashil oo nin siyaasi ah waa nin ciidana marka albaab kasta oo ka soo xidhmo kaarka u dambeeyo ciyaari doona waa in Ethiopia ama dhul hasiyo ama hal soo heshiyo ama heshiisyo mala yacni la soo galo ama waxa kaarka u dambeeyo ciyaari doona waa kaar Ethiopian ah maalinkaas ninka uu sheegay waan ba ilaaway anigu mar dhawid buu soo wacay oo يقول هذا المكان سامعني كهذا يقول هذا مسكون والله هذا صح حسوست نمي هو انت نقلين موضوع ايتوبيا سوماليلاند سوماليا guud ahaanteeda iyadoo isku wada dhan waxa laga cafiyay deen 4 bilyan iyo bar ah su'aashu waxa weeyaan deen maxaa dawladaha loo siiyaa waxa dawladaha deen loo siiyaa si gacanta loogu hayo oo dawladdaas dhaqdhaqaaqeeda oo dhan gacanta loogu hayo dusha looga maamulo dawladdaas ay noqoto dawlad hoos joogta dawladaha waaweyn ee dambixiyaasha دينكاس حتى وحلا سميا كارت أنا دولة دينكاس كجبحين كرنا مركو هذا دين عادي هين الجلية كمركو الله يقول شيء دخل جودة وده كان صح حرينا يو عشورها يو حس مركو السكوت درو دين أنا بحين كرين سنة ده كبعدين وحودن كاسون نقطة ودن أره من ودم هذا دين ككل يرهر قلبيتك وأنا كارت ده مريكان يرهر قلبي يجون ككوه جاميان هذا بس وش وحويا إثيوبيا سوماليا ما الله هي دم كاس يقول شرط يرهر قلبي ده سوي سدم يوقف وين وفسح ما محي nin cadawgaaga siyaasi ahaan juqraafi ahaan diin ahaan si kasta cadawgaaga hood kala duwan tihiin oo waxaad iskaga celiso amaad ku cuna qabatayso ay jirto hal ood ah oo afsaaro inta meel ku ooda ku awdo ama albaabka aad ku xidho maxaa sababay inta albaabkii ka furtay inaad hada xurbaata una awoodi kaliya hubkii kaliya aad haysatay inaad siiso waxay ku tusaysaa deenkii 4 bilyan iyo barka ahaa ee laynaga cafiyay in laynaga bedeshay wax u dhigma qiimo ahaan iyo qiyaas ahaan 4 bilyan iyo bar ama ka badan lashteen loo macfiin xogo badan maanta way jiraan Mareykanku doonaya saldhigu halkan ka helo kan doonaya wax badan way jiraan dadka qaar aragtida shirqoolkii waxbay ku tiriyaan dadka qaarna iska hadla malaa'icni dadka qaarna ay sida diintu kale u aaminsan yihiin laakiin muhiim maaha waynu arki doonaa maalmaha kamida waxa dawladda Xasan Sheikh maanta joogtaa ay dhaafsatay 4 bilyan iyo barka wax u qalma 4 bilyan iyo bar inta meel ku qoro taariikhdan wuxuu doontaa waxa suuxu yahay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku dhaxmaray Djibouti ma aha qodobo ay laba dawladood u kulmaan si ay intaas ugu heshiiyaan ma aha qodobadii maanta Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ugu kulmi lahaayeen si ay intaas isugu soo afkartaan sideed qodobo waa nothing waa mala yacni sida markaan eegay sideed qodobo waxay ugu muuqdeen afkii shacabka lagu jeedin jiray siyaasiyiintu markay soo baxaan af luqad ba jirta shacabka kula hadlaan waxaan ku soo qoray page-ka asxaabtii inta aragtay shirka meeshaas Xasan Sheikh iyo lagu kulmiyay ninka la yiraahdo ina biixi musabixi waxa lagu gaaray heshiis daahan oo dedan oo aynan inagu wariyo wacaaltoona ka haynin heshiiska sideed qodob ee soo bandhigay wada hadallayna si wadiye baraacisku ka buuxaana waa wixii niga leena tusiyay leena ku qancinay heshiiskaas wuxuu noqon doonaa Allahu a'lam tabtaasan soo qoray page-ka Facebook aan ku soo qoray qodobka xigay inta soo raaca inagu sanawaad maqal bulcadbeed Soomaaliyeed ba meel joogtay bulcadbeed Soomaaliyeed ba halkana ayuu meenu sikadiisa ku maqlay bulcadbeed Soomaaliyeed oo markab qabsatay maxaa dhacay bulcadbeed intaas oo xaqi ku qarsooneed halka markii nidaamka gumeysiga ay ula dagaalamayay walaaladii dagaalka ku bilaabayna watiin nimanka xusiinta ay inta bilaabeen taasi mar walba way keensanaysaa qof kasta oo yaani siyaasadda wax uga baxsan yihiin wuu ogaa in gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya inta ka agdhow meesha la yiraahdo Soomaaliya iyo Yemen iyo baabilmidnaba culays weyn inuu soo fuulayo wana la ogaa in keensanaysa bartaas in ciidamo badeed la geeyo ciidamo dhulka ilaaliye la geeyo ciidamo burcadeed iyo xusiinta la dagaalamo la geeyo muuqaaladeeni mid kamid ah oo aan kaga hadlaynay Ethiopia baan ku sheegay saasan u badanay hadana khaldanayn ayaan waxaan ku sheegay in Ethiopia in marka ciidan la doonayo aagaas difaaca in la sameeyo ciidan badeeda oo badda Aasiya inta deegaanka difaaca Ethiopia ay safku hore kaga jiri doonto limaada laana Ethiopia si kastoo aanay bad u lahayn ciidan badeed bay diyaarsatay ciidan badeedo si kastoo diyaarsan ciidan ahaan iyo hub ahaan iyo saarad ahaan iyo si kastoo diyaarsan bay diyaarsatay iyada oranaysa anaga dhulka ilaalinna ka bacdina Soomaaliland waxay ku qasbanaanaysaa inay siiso meesha la yiraahdo Ethiopia badiyo dhulnaysi sabi ku qasban yaani meelay degan naysi sabi ku qasbanaanaysa waxaan aaminsanahay Xasan Sheikh iyo ninka la yiraahdo ina biixi markii ku kulmeen meesha la yiraahdo Djibouti iyo Ismaaciil Umar Gelo wada jira in hawlaha iyo hawlo kale badan laga dhameystay in saddexdoodaba laga dhameystay hawlo u dhigma 4 bilyan iyo bar dollar qiimo ahaan iyo qiyaas ahaan qof kasto siyaasadda adduunka financialka yaqaan ama economiga adduunka sidoo shaqeeyo yaqaan ama political science-ka wax uga baxsan yihiin uu dareemaya in deenka Soomaaliya laga cafiya ay tahay kaliya in lagaga cafiyay oo lagu bedeshay wax 4 bilyan iyo bar ama ka badan ay goyn lahayd oo Soomaaliya laga doonayay oo damac laga lahaay
sidaad doontaan intaa u fasirta waxaan intaa kusii darayaa yani markaad cid is haysaan cid aad is haysaan waxaad doontaanba ciddaa isku haya ee ciddaas aad hal tuuri oo aad kaga adag tahay aad sidato ciddaasi tuurida ay kaaga waabato oo markaas isku dayda sidii tuurida kaaga qaadi lahayd si aanay kaaga biqin ama sidii si aad nagtiisa ahmiyad weyn ugu yeelan waxba iska kaatirin tuurida kaaga qaado oo ka waraa tuurida inta adigu dhibto taado tuurida qaadi gabigeedaba maxaad qofka cidda cadowgaaga hadhow ugu hanjabin maxaad hadhow qofkaas kaga cino qofkaas muxuu iskaga katirinaya hal tuuri baad dheereedo tuuridiina isaa gacanta ku hayste waad siisee Ethiopia inaga oo burbursan inagoo caynkaas inagoo kala go'aan inagoo wadan rasmi ah gacanta ku hayn inagoo sidaasa waxa qura ee aynu kaga adkeen waxay ahayd bad inaynu xaggii badda ka xigno inaynu xeebta ka xignaabay ahayd Eritrea waxay kaga adagtay bad bay ahayd Djibouti waxay kaga adagtay bad bay ahayd inaynu maanta Ethiopia bad siinayno hana badda xor bad u tahay si alla liisa doonto u goosh oo dhiso dikada ka dhiso waxa kugu soo degaan macnaheedu waxa weeyaan inaad sayseen oo cadowgaaga hal tuuriyo aad kaga adkeedo hub aad dheerayd oo kula dagaalmi jirtay iskaga celin jirtay halkii tuurina inaad siisay hadda ka bacdina ninka cadowgaaga aanu ka waabanayno waxbaan iskaga ka tirinaynin intaasaan ku dhaafiyaa taana qodobka xiga Ethiopia damaceeda waynu ognahay Ethiopia damaceeda wax maanta inoo soo bilaabmay ma aha maalmo dhaweyd oo dhan markaan qaylinayay aan hawr Ethiopia war soo socotaa war dagaalada qabiilada la isku keenjeedinaya wax kale weeyaan war oramadan nagu soo socotaa waa wax kale nimanka abaagadhayaasha lagu sheegay lafta nagaad iyo waxan waa sheeko buuq kale Abiy Ahmed luqad siyaasadeed buu ku hadlay si kasta aan isugu dayay inaan sharaxo in badan asxaabta kamid ah qof waalan iyo aragtiyo shaqoonin aaminsan iyo qof iska buuqaya iyo qof Ethiopian xanuun Ethiopiaphobia la yiraahdo ku dhacay baa leey arkay in badan asxaabta kamid ah yarkiisay laakiin maanta wixii aan ka hadlayaan intaaba ku qaylinayay waad aragtaan in saansaankoodii saxadoodii roobku markuu soo socdo sax iyo ufa ka soo waxa lay ufa ka soo horeysa tabiil ufa la yiraahdo si iclaamsan in roob weyn soo socdo ufadii maanta way naga aragnaa roobkii weynaa mihigaanka iyo jirka ahaa iyo gudguduhda u soo socda mayna uu ka dambeyn doona hore waan u sheegay marar fara badan siyaasiyiintu markay wada hadlayaan luqad bay ku wada hadlaan shacabka markay la hadlayaan luqad baa lagu wada hadlaa wadan aan wax jiraba ahayn Burundi oo kale ama wax yaro maalayaan iyo wadan yaro iska noocaas oo kale iyo Mareykan ama Ruush baa wada shiraya dabcan markuu Mareykan Burundi la shiraya waxa weeyaan waxa fuliya maalmo dhaxaas waxa jirtay wasiirad ka tirsan Koonfur Afrika u maleynaya oo la anaga reer Yurub iyo Mareykan markay nala hadlayaan kaliya waxay noo soo bandhigaan waxay doonayaan Afrika mas'uuliyaad weyn Afrika waxa sameeyay waxana way wax amarana la siiya amaradaas uu fulinaa anaguna wasiirad dhanbe heedo Koonfur Afrika ka tirsan oo lahayd isna nolol tacaamul inay bedelaan yani dawlad weyn oo awood leh oo wax la iskaga tirinayo oo awood xataa adeegsan karta markay u baahato iyo dawlad yar oo ay dan ka leedahay markay wada shirayaan waxa weyn abtiyaha waxay xasan ka doonayaan hawsha dhame laakiin saxaafadda markay limaada shacabka la soo taagan maxaa laga bilaabay hadalka waxaan ka wada hadalay daraha labada dawladood biyaha wixii kale soo dhawriyay siyaasaddu biyaha wixii bay leedahay waxaan maanta Muusabix markuu Abiy Ahmed dhinac fadhiyo ku nacnacalahayo dhamina waa luqadda la iskaga jeediyo dadka caamada ah heshiiskii caadiga ah ee la gaaray wixii lagu heshiiyay wixii lagu wada hadlay ufadoodii weyna soo gaaraysaa baan filaya qof kastoo caqli leh wuu dareemayaa meesha waxa ka dhacay qolka xafiiska gudaha ka xidhnaa waxa ka dhacay qof kasta wuu dareemayaa hadalkii ina bixiyo kala haayeen Abiy Ahmed agtiis iyo aqoonsiga raadinaya fardaqtiyo danaha labadii ummad walba danta dawladda ka shaqeysa waxaas waxa weeyaan afkubaadsiga saxaafadda iyo shacabka la iskaga jeedinayo qodobka xiga laga yaabaa dhalinyaro fara badan inaan tan ogeyn Ethiopia dhulka Soomaali galbeed goorma Ingiriisku siiyay 1954 Muuse 1954 Ethiopia Ingiriisku wuxuu dhulka Soomaali galbeed siiyay 1897 maalinku xabashigu heerar qabsaday inagana Ethiopianku 3 sano la joogay Afri State kii inuu yimid 15 sano le Afri State kii inuu yimid 19 bixiyay 13 sano maalinku gumeysigu la joogay 19 sano ay tahay maalinkii caasimadda Soomaaliyeed heerar xabashigu qabsaday ee Hayle Salaasi intuu fuulay bahalkii intuu fuulay masaajidkii jaamica ahaa ee meesha la yiraahdo heerar intuu fuulay dhakada kaga kaacay dhalinyaro badan marmar taariikhda haynina maalinkaas Ethiopia loo saxay dhulka Soomaali galbeed imka ogaadeen iyo la yiraahdo tabeetana Ethiopia way iman kari weeyeen dhulka Ethiopia dhulka way iman kari weeyeen waayo dadkii Soomaaliyeed joogay baa noolaa damiirkooda noolaa waxba iska celinayeen iska suga baa la yiri 1954 waa marka dhulka reserve area la yiraahdo isaaq uu badan yahay la bixiyay waana marka xadka la calaamadiyay markaana shilkii joogay way diidanay wali Ethiopia laakiin dagaal ma awoodin mudaharaad bay awoodeen way mudaharaadeen 22 qof Hargeysa ku dhintay 24 qof waxankaas markii mudaharaadeen yani Ethiopia dhulka Soomaali galbeed waxa la siiyay 1897 waxa xadkeedana ay xadkan beenaadkan maanta bildiig iyo dhaxmaras aaga salxal iyo mari deegaanka marana waxa la calaamadiyay 1954 Ethiopia si ay dhulka gacanta ugu wada dhigto waxay sugaysay 7 sanadood
maanta marka la leeyahay heshiis baa la saxeexday halkan baa la isugu meel kale la isugu yimi fahan in heshiisyada la saxeexday qaarkood ay 30 sano ka bacdi fulayaan 40 sano ka bacdi fulayaan 50 sano ka bacdi fulayaan siyaasaddaasna ay tahay siyaasad laynagu soo tijaabiyey oo layna garanayo oo layna qaybsan yahay maadaama aynu nahay dad oral society afka noola maadaama aynu nahay dad caqliyadooda iyo si kasta ugu faanaan waxaan ugu faanay inaynu caqli badan nahay waxaan ugu faanay inaynu libaaxyanahay laakiin wixii naasoo dhami waa maalin noole waxaa jira dad markay shaqaysanayaan u shaqaysta adduunka mustaqbal baa loo shaqaystaa lacag intaas $2,000 bishan kusoo gelaya 500 safe na konka ku tuuro safe ka dhig musiibooyin waxa dhici doona 500 waxbaa saa loo kala qiimeeya inagu maalin nooleynuna sida xamaalkeenu hay maalinkii ama kuuliga intu maalinkii shaqo galo wuxuu helo kuna qaylo waxna ku cuna